daawadayaal barnaamijka tusmo oo aanu kaga hadalno hawaayaha nolosha bulshada waxaanu toddobaadkan kaga hadlaynaa saameynta nololeed ee gudniinka fircooniga ah uu ku yeesho haweenka. wasaaradda diinta iyo awqaafta waxay toddobaadkii hore soo saartay fadwo ku saabsan gudniinka hablaha waxaana mamnuucday gudniinka fircooniga ah. fatwo ku saabsan gudniinka hablaha iyada oo ay muddo badan soo noqnoqotay hadal haynta iyo ka hadalka gudniinka fircooniga ah ee hablaha iyo waxa ay shariicada islaamka ka qabto kadib markii ay wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Soomaaliland aragtay isla markaana daristay waxa ay diinteena suuban ka qabto arintani kadib markii ay wasaaradda la tashatay culimada dalka iyo dhaqaatiir aqoon u leh caafimaadka waxa ay wasaaraddu soo saartay fatwadan hoos ku xusan in gudniinka habluhu ee sharciga ah yahay mid waajib ah iyada oo loo gudayo qaab waafaqsan shariicada islaamka sida ku cad nusuusta iyo madhabta shaafiiciyada ee lagaga dhaqmo dalkeena jamhuuriyadda Soomaaliland. 2 waxa xaraan ah oo dambi ah gudniin kasta oo aan waafaqsanayn ama khilaafsan gudniinka sharciga ah ee kor ku xusan kaas oo dhaliya ama keena googooyn tortoris sida gudniinka fircooniga wixii la mid ah. 3 gabar kasta oo la kulanta gudniinka fircooniga waxa ay yeelanaysaa magdhow ku salaysan hadba intuu la eg yahay dhaawaca ama gabadhfalka loo geystay. 4 qof kasta oo ay ku cadaato inuu ku kacay gudniinka loo yaqaan fircooniga waxa uu mutaysanayaa ciqaab ku salaysan hadba intuu la eg yahay gabadhfalka uu geystay. qodobka shanaad ee ugu dambeeya wasaaradda diinta iyo awqaafta waxa ay baaq u diraysaa dhammaan waalidiinta ururada bulshada rayidka ah iyo kuwa dawliga ahba ee ka shaqeeya wacyigelinta iyo joojinta gudniinka fircooniga ee loo yaqaan FGM-ka in ay dhaqan geliyaan fatwadan oo ka soo baxday wasaaradda isla markaana ay ka feejignaadaan in ay cid kale ka qaataan fatwo aan waafaqsanayn ama aan ogolayn wasaaradda diinta iyo awqaafta. ugu horeyn bal aan eegno saameynta uu nolosha haweenka ku keeno gudniinka fircooniga ahi waxay nooga waramaysaa Dr. Sahra Caydiida Cabdilaahi. gudniinka fircooniga ama gudniinka waxa la yiraahdo waa xaalad dhibaato badan buu keenaa hablaha gaar ahaan hableena Soomaalida oo ah kuwa ugu badan ee tacadiyada lagu sameeyo. haddaynu ka hadalno saameynta ku yeesho waa laba loo qaybiyaa labadaas waxay noqdaan mid dhow iyo mid fog oo inanta mustaqbalkeeda saamaysa. ka dhow ee uu ku yeesho waxa kamid ah baqasho inantii galaysa baqasho fara badan baa galaysa baqashada galaysa waxa weyn marka la yiraahdo waa gudaya way baqanaysaa in xanuun isla markaa imanaya xanuun baa imanaya dhiigbax baa ku imanaya meesha waayo islaantan qalaysa ee aqoon waxan wax la qalaba ma yarago meesha way qalaysaa dhiigbax baa imanaya isla markaa xanuunkaas meeshii maadey ee la jeexay dhiigbax yimaado kaadi bay ku dhageysaa oo ma kaaji karayso cuntada way ka joojiyaan waxay dhahdaan meesha caabuqayso cuntada ka joojiyaan marka nafaqa darro ayaa halkaa kaga dhacaysa infection fara badan bay qaadaysaa hadhowna shoog gasho xaalad dhimasho gaadho ayaa laga yaabaa. kaas waa mustaqbalka waa ka hore ee dhibaatada saameynta ka mustaqbalka ku yeelanaya waxa kamid ah waxa sameysmo wax la yiraahdo evaluation cystiga waxa la yiraahdaa waa wax meesha ka sameysmo sawirkeeda oo xusuus doona waa waxa weeyaan bahal weyno meesha markay xidhaan diirka isku tolaan ayaa dhexdiisa dhidid fara badan baa ku urura dhididka fara badan ku urura wuxuu sameysmaa wax weyno biyo ah oo kale oo soo laalaada kaas cysti la yiraahdaa cawaaqib xubno ku yeesha inta marka la guursado oo kale waaba laga shakiyaayo rag qaar baa yiraahda gabadhan malaa inanba maahay waa nin sababtoo ah sawirkana uu eegaada sidii rag maxaa la yiraahdaa infection soo noqnoqdo oo meeshii ku dhacaya way meesha way dahaaranta oo meel la tolay waliba si xun qof aan waxba toli garanayno tolay infection ku dhacayo xubnaheedii taranka ee kale
dhibaatooyinka faraha badan buu ku yeeshaa hadhow dhalmadii oo iyaduna ta ugu darana meesha waa la jeexaa meesha la tolay baa la jarayaa ilmihi ma soo mari karaayo dhibaatay ku noqonaysaa marka la jaro hadhow toole ee ilmihi soo baxo madaxiyo ka ugu dee hawsha badana markuu soo baxo haddana kadib waa la tolaa maalin kasta inantaas umuleysana waa la jarayaa marka la jaro soo baxo haddana waa la tolaya hadhow tooladeedna inay meeshiiba go-do oo hadhow toole ilaa saxaradii isku furantaa horta anu dad badan waan arkay waxaana ku leeyahay fabulation system baa la yidhaha ama waa dhibaatada cawaaqib xumaad ka timaada maxaa la yidhahdaa gudniinka oo galka biyo ku jiraan samaysmaayo halkaa la tolay ka samaysmaya kaasani badan kula kulanaa waxay gaadhaa heer inanta gurigeedii iyo guurkeedaba ku weydo tusaale ahaan gabadh baan beri la kulanay 2014 meelahaas ahayd dhakhtarkaana loogu keenay sababta loo waday gabadhaas waxay ahayd waa labeeb baana lagu nacamta labeeb waxa laga wadaa waa nin iyo gabadh isku jira kadib markana anaa kliiniga markaasaan joogaa meesha waa lay keenay waan eegay markaan eegay kadib dhakhtarkii baa lasii sugay dhakhtarkina waa eegay gabadha waxaan aragnay waxana aanay ahaynba dee waxaan iyagu sheegayaan laakiin taa xumo ka timi gudniinka fircooniga ahaa kadib markaan wareysanay waxaan ku nidhi anagu markaa war uma hayno waxa dee reerka u wada socdaan laakiin markaan ku nidhi waxaan wax saas gudniinka keena waana laga jarayaa dhibaato waqti badan ma qaadanayso dawana way qaadanaysaa insha Allah ka bogsanaysaa kadib ayaana loo warramay wana lagu yiri inantan markii ninkii loo hooyay ninkii wuxuu gabadhu ma waa nin sababtoo ah waxaan ay leedahay kadibna anu gabadhan ma qabayo gabadha sidii gurigeeda looga soo saaray oo ku burbur dhibaatooyinka maalin kasta la kulano waxa kamid ah xaydka waxa la yiraahdaa dumarka dhiiga ka yimaada uu ku istaaga hablaha marka qaar dabadna inantiyoon dhiigba ka imanahayn oo waqtigeedii dhaaftay ba hooyadeed maxay u malaynaysaa inay inantii uur leedahay way ka shakiyaysaa sababtoo ah inantii dhiigii ma imanay mardan dhiigii mana uur baa laga shakeeyaa deedna hooyadii baa ku keenaysaa inantii dhulka isla dhacaysa halkan muxuu soo buurnaaday ay ku leedahay inantii dhiigii kama imanin halkana way buurantay uur bay leedahay hadhow markaad eegto computerkii wixii la saaran maxaa la arkayaa in dhiig halkan ku quruuray sababta tolniinkii iyo dhibaatadii u geystay ogeed meel uu ka soo baxay waay hadhow deedna dib haddana meeshii loo furay oo deedna meeshii marka la furo haddana laga baqanayo meeshii isku timaado oo haddana dib looga shaqaynayo qalab loogu talagalay la gelinayo la oranayaa sanado inantii inta la guursanayo ku ilaalisa meeshii kiisaskaas kala la kulana alxamdulillah wasaaradda intii oo qafkuna dee fikirkii dadkii la qaadatay oo la dhibxi laga tago dee waa dhibaatayna loo geysanayo dee waad idinku wad garanaysaa dhibaato qof la dhibaataynayo marka waxaan oran lahaa dee hooyooyinku ay iska daayaan waxa ka qayb qaatay waa ayeedii waa hooyadii waa ehel intii dadka u ahayd dee ilmo qof yaroo la dhibaataynayo mustaqbalkeedii nolosheedii la dhibaataynaya maxaa aakhirana wala weydiinaya waa qof baa la dhibaataynaya waxa la inaga xaaraantimeeyay in lagu sii socdo maaha kana waxaan la dee waxna laga tago waa dhaqan soo jireen oo way adagtay si mer kaliya ta siro loo gaarsiiyo way adagtay laakiin kolba si maanta kale alxamdulillah meel fiican baa la maraya برينا ويخسي في عنانسا taasi waxay ahayd Dr. Sahra Ciidido oo inooga waramaysay saameynta uu nolosha haweenka ku keeno gudniinka fircooniga ah Sheikh Maxamed Sheikh Ismaaciil Awlibaax waxa uu ka mid yahay culimada Soomaaliland waxa uu ka waramayaa waxa ay diinta Islaamku ka qabto gudniinka fircooniga ah waxaana uu tilmaamayaa halka la rumaysan yahay in uu salka ku hayo waxa ay ka qabtaa diintu gudniinka waxa ay ka qabtaa shariicadu gudniinka loo yaqaano sunniga marka gudniinku waxa inaga caadadeena ahaa oo soo jiray oo in badan soo socday haddana socda gudniinka loo yaqaano gudniinka fircooniga gudniinka fircooniga waa dhibaato weyn waa dhagar weyn oo dadka weeqday in badan qurun fara badan kuma sano ayaa uu soo jiray waxaana loogu magac daray daaqyada weyn ee caalamka soo martay ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka qabtay ee ilaa yoomina hada aayad looga dhigay ay jusadiisii iyo xusii joogo baqtigiisii kolka ninkaasi oo ahaa ku adoonsada dadka wiilasha laaya hablahana daaya hablaha waxa uu deenayaa maaha in uu daryeelayo cadaab iyo ciqaab iyo dhibaato ayaa ku sameynaya laakiin marka loo nisbaynayo fircoon ee leeyahay gudniinka fircooniga ah fircoon waxaad arkaysaa in uu isagu ka taxadirayay oo gudniinkan hadduu jiray uu soo jireeyay inaanu dhalan wiilka uu ka baqaya
ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون كإلى الله سبحانه وتعالى وحلو الشيغي عددو الشيغين أما كهان كيسو أو الشيغي أما الله قلت يوضي إنه ويل كسو بحي دونه ري بني إسرائيل ويل كاسنا ملكي كيسا أو زولين دونه نكا فرعون كبري وحكستا لين حتى أولوهية دي الشيكتين ربي سبحانه وتعالى تي أو كبغي ودنها فرتكو هي إلهي أوليه سبحانه وتعالى ونمكن لهم في الأرض كواسان دونينا إنان وحتصنه وحي كبغيان أن تصنه تبدنا واحد عاي نكي وستا أو كبغيا إنا وسور رغي سنددن بصوبح يا ويلكي أن كبغيي المكستو أو ري بني إسرائيل ودشا هلا soo sheego si loo dilo oo loo dhakriyo oo aanu u noqon ka ku soo socdo fircoon ee looga baqayo ilaahay baa caalamka iska leh ilaahay baa ku tasarrufaya kolka bartii wuxuu ku dhiman lahaa qofku ayaa lagu badbaadinayaa nabiyullaahi Muusa alayhi salaam isagoo yar iyo isagoo weyn intaba ووحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليه وجاعله من المرسلين وحي إلهامه هي إله سبحانه وتعالى أي قلبك هو يدي موسى أي كتوريا حتى أضبغضه بدأ إسكاكريدو تابوت كاكريدو بدأ سنة حقاته هنغذي فيه في التابوت صندوق نحرق فاغذي فيه في اليم أمر حتى نبدأ كريد فليلغيه اليم بدنا أمر بيقفتاه يدنا دي بدأ وتورسا حتى نوح أمر قبل وليأخذ عدو لي وعدو له على وكلا سيقاضية كوري جيبا لغو كوري فرعون المهيار قلقوا ايغو فرعون ديهيسه فرعون كما هاي كرايو تبنتي واتكينتي حتى مركي دنبه إنه إلهي بدي أكرا جحن نبي الله موسى عليه السلام هلكي حتى لغوها لغا فرعون نكاد بلايد أبوها قرنك قرآنكم مشيغيو وقتكم مشيغيو لكن ووحا صومري عدي لمد وددي سقادنا لمد كون نقنيسو هذا فرعون كاسبوها كاس لوغو مغادري أفريقيا ودن isaga di haystay Afrika ودن horta isaga haystay oo xukumayay oo wuxuu doontaba u sheegtay wuxuu doonana ka geysay taadi ah kaasi waa jariimo weyn waa dambi weyn shariicadu in xubnaha taranka ee gabadha ama ragga lagu taadiyo intaba way xaraam yeeshay hadii lagu taadiyana bilaash laga ma dhiginayo waxa looga qaaday arshigii iyo wixii qofkaas uu geysay qofka ay dhibaato ah ka islaamiga ka hadlayna waxa weeye ka sunniga loo yaqaano ka sunniguna meel yar uu ku jihaysan yahay sunniga kolkaad eegto madaahibtu way ku kala tagsan yihiin madhab wuxuu u qabaa horta erayga sunni la yiraahdo ee dadka inta badan iska dhaxgala sunni mar sunna iyo faral ba isaga yaala sunna iyo faral ayaa isaga yaala salaadu sunnana way leedahay faralna way leedahay marka waa أجيال السنة فرل مرنا كتابك يا السنة الليلة كتابك يا السنة والشريعة الإسلام كون تلوج جدا واتا فرل اللي جت جاي حاجة معها سنها يعني الدين تأيي جديسي وحديث كجديي معناه قوي قلك إن أئمه حكم ذي هاي إمام أحمد وكله وحوار كان واحد يللي ما دنا إسكو في عن هذا لا رأي من واحد وكجيت أي نجري إمامنا الشافعي ماذا كان نو كسر عن مالي رجعنا يدمر كأنه أنت بقى قرنايو سوجريك أن عبادة إنه أي كسر ليسن تهاي وحوي المذهب الشافعي مذهبنا الشافعي وحي قبان إن أواجب بها جدني كفرعوني ولقنا إلى كريم ما أنت دويت باقي بكسر بحي وزارة الدين تي أوقافته هجاسمها جود أو شيء هنا قاعد دكتين بي سدو وأدوذ مغليسين كل شيء إن سدا سياسة دوقتها على دولتنا لنا الدولة ينادل كنا إنه كسعده كني فرعوني وحلا إلى مجرو عدي لو شيء أنا إن لو قبته أو لو دبعت يدف تعيدك وجيسين لو قعدوا وحعيالين عيال لقوا مرمرة لكن كسرني جا عدي دولة يسين دجاه لقى فريستو أما اللي سكت دعيو مذهب كنا عن كل رقنا هاي أن برناي أن كتبتنا هاي سنة وإنه يهاي إن لقيتك كريم مثلا كاس سني كاس
سادرتيد waxa weeyaan horta dumarka waxaan u soo jeedinaynaa gudniinka fircooniga faraha kula jira inay ka baxaan inay ilaahay uga tooba keenaan cidii ay waxyeeleen ay u geysteen waa lagu leeyahay in cafis ka dalbaan oo way garanayaan ay u tagaan oo ay yiraahdaan dhibtaasi ma aanan ogeyne hana laga dhaafo sunnigana sidaas ayaa dawladdu inoo sheegtay culimadeenu ay noo soo saartay in badan wasaaradda diinta oo qaftuna ay u hawl gashay go'aankana la soo saaray sidaas ayaa dawladna ayaa inoo go'aana oo aan ku soconaynaa oo dawladna aan ku dhaqmi doono biidnillaahi tacaala bal markana daawadayaal aan eegno qaar ka mid ah haweenka oo ka dhibanaya fikirkooda ku aadan in la joojiyo gudniinka fircooniga ah haddaan fikirkayga ka dhiibto fatwada ay culimadu ka soo saartay gudniinka gabdhaha horta run ahaan waa tallaabo weyn oo la qaaday baan odhan karaa Somaliland qaaday maadaama oo laga soo gudbay xaalad dadku marka hore ay ku sugnaayeen lana cadeeyay laakiin ka fikir ahaantayda anigu waxaan aad u taageersanaa in laga wada tago gudniinka maadaama gudniinka fircooniga kaliya ay culimadu ay qeexeen isagoo ka mid ah noocyo badan oo gudniinka ah oo markaas sunnaha lafteeda iyadoo bulshadu ay odhanayaan sunnah samaysanayna laakiin simi fircooniga wax la yiraahdo fircooniga kala ay sameeyaan marka waan soo dhaweynayaa waxaanan ka codsan lahaa bal inay cadeeyaan sunnaha saxda ah ee diinta islaamka oo gashay isla markaana qodobada la soo saaray waxa ka mid ah in qofkii ku talax tago oo kale ama fircooniga ku sameeyo kale in magdhow laga qaado markaas oo kale xeer ciqaabeedkeedina bal in iyadana la waafajiyo oo la soo saaro bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Hoodo Maxamed Cali go'aankan ay ka soo saartay maanta wasaaradda diinta oo qafta aad ayaan ugu raacsanahay waayo gudniinka fircooniga wuxuu ahaa wax dhibaato ka haysatay hablaha xagga caafimaadka marka la eego aad baan ugu raacsanahay haddii lagu dhaqmana waxaan ogahay inay noqonayso faa'iido ay heli doonaan habluhu insha Allah tala ahaan waxaan soo jeedinayaa bulshada reer Somaliland inay ku dhaqmaan talada wanaagsan ay noo soo jeediyeen diinta oo qafta bismillaah magacaygu waa Naciime Cabdi Haybe haddaan ka dhibto fikirkayga dawladda Somaliland go'aankii ka soo saartay gudniinka fircooniga horta ku waxaan u hambaleynayaa wasaaradda diinta oo qafta go'aanka ka qaadatay ee 5 qodob ay ku soo saartay gudniinka fircooniga waxaan taageersanahay harta oo in badan ba aan suginay rayga amba go'aan qaadashada ay ka qaadatay inay ka qaadatay dawladdu alxamdulillah maanta waa la gaaray natiijadii hambalyo ayaan leenahay marka hore wasaaradda waana ku raacsanahay rayga waana ku waafaqsanahay in gudniinka fircooniga ee dumarka ku hay dhibta badan dhinac kastaba kaga hayay maanta laga qaatay go'aan anigu waliba waxa la yiri sunnaha waajibka bay dawladdu tiri inay sameeyaan maxaa la ku haboonto waliba kaasa hadda laga sii tagi karo oo sunno mu'akkad ahayn amba sunno adag u nahayn ayaan oran lahaa dumarka xataa laga daayo laakiin wixii sunno diinteena wanaajisay alxamdulillah dad badan oo iga cilmi badan ayaa soo saaray go'aanka oo ugu hambalyeynaya haddaan talo ka dhiibto taladan ka dhiibanay waxaa ka mid ah kuwa harta 5 qodob ee dawladdu soo saartay in la garab istaago dhammaan lagu taageero si loo sharciyeeyo amba sharciyada baarlamaanku soo gooyay ay noqoto lagu taageero wasaaradda dhammaan 5 qodob ee dawladdu soo filisayna hooyooyinka iyo dadkii sameyn jirayba dhammaan ay qaataan dad hoggaansaman ay noqdaan intaas ayaan daawadayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii tusmo oo aanu toddobaadkan kaga hadalnay saameynta nololeed ee uu ku yeesho haweenka gudniinka fircooniga ahi waa muuqaal duubidii Khadar Cabdi Xaajihi iyo Maxamed Ismaaciil Xamdulooyd ku dhaafay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo Thank you.